السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوا صاحبيال كسودوا هذا يوتيوب channel كان نيجا داوانا إنسان إيجاو تكنولوجي. هدية هاي مركي كوه رئيسي channel كان صوب وقطو. هنكارجينا يا إن سبسكرايب صارتو. الحمد لله بدونا كورس كاسو على هذا ويب ديزاين وتكبرنا دون تان لغتها أساسية ويب ديفلوبمنت تيجا سيدا HTML CSS iyo bootstrap iyaga soo mid kasta aan kasoo bilaabo doono base ilaa advanced ah qof kasta oo base ah si uu ku fahmi karo iyo sidoo kale qof kasta oo advanced ah si uu nagala socon karo ayaan course u socodsiin doonaa course-ka laba qaybood ayuu kala saari doonaa qaab yar theory ah iyo inta badan oo awood saari doono practice markii course-ka aan qaybihiisa dhexe waxaan awood u yeelan doonaa qofkii si fiican ugu xirnaado inuu sameeyo ama awood u yeelan doonaa inuu sameeyo website dhammaystiran oo sidoo rabo u maamulo oo sidoo rabo uu shaqeysto website baan diyaarin doonaa oo kala duwan inta course ku socdo anagoo isticmaalana oo kaliya HTML iyo CSS inta badanna ku soo gabagabeyn doona course-keena bootstrap oo iyadana ka soo bilaabo doona base ilaa advanced ah waayahay course intuu socdo waxyaalahan arki doona waxaa ka mid ah introduction to HTML hordhaca ama aasaaska HTML maxaa la yiraahdaa ayaan arki doonaa sidoo kale waxaan arki doonaa casharradeena ugu horeeyaan ku arki doonaa HTML tags ama casharkeena koowaad baan ka dhigi doonaa HTML tags oo ay ku jiraan headerada paragraphiska displays maxaa la yiraahdaa linkiyada sida loo waco linkiisa u shaqeeyaan sidoo kale imageska sida u shaqeeyaan ama image loo soo geliyo HTML sidoo kale waxaan arki doonaa text for color course intuu socdo waxyaalahan arki doona waxaa kamid ah HTML attributes-ka HTML oo sourceska alt-ska la isticmaali doono waxyaalahaasaan arki doonaa sida hadda meeshaan oo kale waxaa ku saabsan font-ska iyo sidoo kale formatting elements-ka dhan ayaan arki doonaa course-keena waxyaalihii aan ku arki doono waxaa kamid ah styling HTML with CSS HTML marka lagu qurxinayo CSS ayaan iyadana sidoo kale arki doonaa waxaan arki doonaa aan baran doono waxaa kamid ah table in HTML adoo HTML joogo table sidee ayaad u sameyn kartaa sidoo kale waxaan arki doonaa HTML lists waxaan arki doonaa waxaa kamid ah HTML blocks oo aan baran doono inline block waxaa jiri doona block elements iyo inline block elements ayaa jiri doono waxaana ku kala bedelan yihiin sidoo kale waxa ay ku kala bedelan yihiin ayadana waan arki doonaa insha Allah sidoo kale waxaan arki doonaa HTML forms adoo joogo luqadda HTML inaad form diyaariso ayadana cashirkeena ayaan ku arki doonaa intii uu course-ka uu socdo course-ka waxaan ku soo gabagabeyn doonaa intii uu socdo basic bootstrap inaan kasoo bilaabno base ilaa heer advanced ah inaan gaarsiino ugu dambayna template download inaan template soo degsano haddana aan maamulno oo macnaha ka sameyno projecti course-ka marka intuu socdo saa hore soo sheegay waxaan diyaarin doonaa website badan oo kala duwan haddii macnaha aad danaynayso course-kan waa course ku baxay kow luqadaada hooyo af Soomaali ayuu ku baxi doonaa marka labaadna si wanaagsan ayaa loo sharxi doonaa oo ka duwan waxyaalihii hore oo YouTube la soo gelin jiray heer ka duwan oo la soo tafatiray ayaa inta badan oo sharxi doonaa qofkii daawadan uu si fiican u fahmi doono waxaan rajeynayaa insha Allah inaad wax badan ka fahmi doonto oo aad wax badan kala socon doonto inta course-kan uu socdana aan rajeynayaa insha Allah inaad si wanaagsan ugu xirnaan doonto oo videoyaasheena soo gelinana aad si sheegareyn doonto HTML maxaa la yiraahdaa HTML is the standard markup language for creating web pages waa luqad standard ah oo loogu talagalay in lagu abuuro web pages-ka lagu abuuraa HTML-ku ma aha programming language sida C# dadka qaar waxa laga yaabaa inuu ka fikirayo HTML ma programming language ba maya HTML ma aha programming language laakiin waa markup language hypertext markup language marka lagu leeyahay oo arki doonaa insha Allah
macnaheeda HTML oo arki doonaa. HTML stands for HTML waxay u taagan tahay Hypertext Markup Language. Hypertext macnaheedu waxa waaye isdhaafdhaafin, markup qoraalada ama dokumentiyada in isdhaafdhaafiyo, qoraalada luqadaha ama dokumentiyada in isdhaafdhaafiyo waxaa la yiraahdaa Hypertext Markup Language. Okay, HTML elements are represented by tags. HTML elementsku wuxuu ku shaqeeyaa tags, tag la furayo iyo tag la xirayo. HTML-ku by tag ayuu ku shaqeeyaa, iyadana waa arki doonaa by practice ayaan arki doonaa. HTML tags label piece of content such as headings, paragraphs, tables and so on. Okay, browsers do not display HTML tags. Browserska HTML tags marka ma soo bandhigayaan. Jawaabtu waa maya, because tag haddii aad furto oo aad xirto, browsers maxaa la yiraahdaa waa Google Chrome-ka, Firefox-ga, browsers, any browser you use it ayaa la yiraahdaa browser. Browsers marka ma soo bandhigayaan HTML waa maya. Browsers inta badan HTML ma soo bandhigaan tagskeeda, laakiin waxay soo bandhigaan in the body tag wax kasta oo body tag ku dhex jira. Sample document, tusaale yar ama document yar oo symbol ah halkaan ka arkaysaa. HTML tags waxay u shaqeeyaan for pairs laba. HTML ayaa la furay sida meeshan ka aragto, halkan maxaa laga xiray HTML tag ayaa laga xiray. sidoo kale meeshan head baa la furay, head baa la xiray. tag kasta oo aad furto HTML markii aad joogto waxaa qasab ah inaad tag isaga aad xirto. haddii aan body furo waxaa qasab ah inaan body xiro. HTML tagsku waxay iskula shaqeeyaan for pairs laba ay isku raacaan. kuwa kaligood socdo waa jiraan oo la yiraahdo standalone tags. elements name is surrounded by angle brackets. HTML tagsku waa element waxa ku hareeraysan la yiraahday angle brackets. angle brackets waa kana ujeedo waa ku hareeraysan waayahay. HTML tags normally come in pairs like waayahay waxaa la yiraahdaa HTML tagsku markasta waxay u yimaadaan qaab laba ah. macnaha tag baa furmi doono, tag baa xirmi doono. HTML inta badan laba ayay u socdaan tagskeeda. kuwa waxaa iska jiri doono la yiraahdo standalone tags oo ayagana arki doono oo horizontal line ku kamid yahay markii la rabo in line la sameeyo, breakska ama BR-ka markii breaks la sameynayo, kuwaas waxaa la yiraahdaa standalone tags. ayagana waa arki doona waayahay. the first tag in pair is the start tag. markii laba isku socdaan tag ugu horeeya waxaa la yiraahdaa start tag, midka labaadna waxaa la yiraahdaa end tag. markasta start tag end tag wuxuu u egyahay start tag ayuu u egyahay la yiraahdo meeshan, laakiin waxaa ku jira the forward slash inserted before the tag name. midka hore sida meeshan hadda ku aragto iyo midka waa isku egyihiin, laakiin wuxuu ugu bedelan yahay end tag wuxuu leeyahay calaamadaas oo dabarka ah. sida ujeedaba calaamadaas dabarka ah ayuu yeelan doonaa waa macnaha end tag. sidaas ku kala saar doontaa. okay, waxyaalahan arki doona waxaa kamid ah HTML attributes. below are some attributes of using HTML. meeshan hoos waxaan ku arki doonaa qaar HTML attributes kamid ah. waxaa kamid ah alt waxay qeexdaa text for an image. qoraalada image-ka qeexdaa markii image-ka la soo bandhigi waayo ayay qeexaysaa waa macnaha. disabled ayaan soo kala arki doonaa. hajareefan ayaan arki doonaa oo website address-ka loo isticmaalo inta badan oo linkyada URL-ka oo linkiga loo isticmaali doonaa. waxaan arki doonaa ID. waxaa kamid ah class meesha ka maqara kamid ah waxyaalo badan kamid ah oo attributes kamid ah iyagana aan arki doono oo meeshan aan ku soo qorin. SRC kamid ah oo source. SRC waxay u taagan tahay source. waxyaalaha kamid ah attributeska HTML-ka waa styles waayahay.
HTML headings ee arki doona HTML headings ku waxa weeye 6 H1 ilaa H6 H1 ayaa ugu weyn H6 ayaana ugu yaraa macna H1 sidee ugu weynaatay H6 na sidee ugu yaraatay practice keena ayaan ayadana ku arki doonaa